maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday tifaftiraha warbaahinta goobjoog Cabdicasiis Axmed Gurbiye kadib markii maanta markale la soo taagay maxkamadda. Wariye Cabdicasiis Gurbiye ayaa lagu xukumay 6 bilood oo xarig ah iyo 5 milyan oo lacagta shilin Soomaaliga ah. 14kii bishii Abriil ee sanadkan ayaa loogu yeeray saldhigga degmada Hodan iyadoo la xiray 4 maalmood kadibna damaanad ayaa lagu sii daayay. Waxaana loo diiday inuu shaqadiisa saxaafadeed sii wato ama uu wax ku qoro bartiisa Facebooka. Maxkamadda ayaa sheegtay in lagu helay qodobka 386 ee xeerka ciqaabta ee 1986 dhaqan galay kaasoo ku saabsan wararka been abuurka ah sida ay maxkamaddu ku dhawaaqday. Dhan 5 milyan oo shilin Soomaaliya xukunkaas oo go'aan kala soo waafaqsan qodobka 125 iyo 112 oo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Xukunka waxa uu dhacay maanta taariikhdu tahay 9 July 2020 waxaa ka furan rafcaan dhan 30 cisho maxkamaddana waa xiran. xeerka la marsiyay wariye Cabdicasiis Gurbiye ayay hay'adaha xuquuqda aadanaha ku doodayaan inaanu munaasib ku ahayn saxafiyiinta. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa 3 bishii May ee sanadkan oo ku beegneyd maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in xeerka ciqaabta ee soo baxay sanadkii 1964 wax laga bedeli doono si loo hubiyo inaan wariyaasha loo adeegsan isla markaana ay dawladdiisu gacan ka geysan doonto in wariyaasha aanan dambi dusha lagaga hubin. ballanqaadkan ayaa muuqdo inaan mid maanta suurtagelin ah. haddaba waxaa qadka si toos ugu jira Cabdalla Muumin oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Somali Journalists Syndicate. Cabdalla ku soo dhawaaw barnaamijka. haddii aan ku weydiiyo sideed u aragtaa hanaanka xukunkan u dhacay? ما صدقت رمان داوداش BBC والسلام حكمكان وحنو أرجعنا إنه يهاي حكم عدالة الرأة oo aan munaasab ku ahayn suxufiyiinta Soomaaliyeed xilligan adag ee ay shaqeynayaan. dhanka kale go'aanka garsoore uu gaaray wuxuu u muuqday go'aan diyaarsan oo siyaasad badan ay ku jirto. marka waxaan u aragnaa inuu yahay xukun cadaalad darro ah oo ay tahay in laga laabto si degdeg ah. Cabdalla, haddii aan ku weydiiyo dawladdu waxay ku heshay wariyaha warar been abuur ah sida ay sheegeen. journalistayaasha ama saxafiyiinta laftooda mas'uuliyad kama saarna wararka ay soo bandhigayaan inay hubiyaan marka hore. waa su'aal fiican. waxa ay tahay marka hore in la isweydiiyo sida uu ku yimid xukunkan iyo processkii dheeraa ee uu soo qaatay. anigu dhammaan kiisaska maxkamadan Cabdicasiis Gurbiye waan ka qayb galay waan la socday sida wax u dhacayeen goobjoog ayaan u ahaa. waxaan ogahay in 3 jeer in la bedelay oo xafiiska xeeraalintu ay bedeleen dhammaan eedeymaha loo haystay Cabdicasiis Gurbiye markii hore lagu xiray iyo kuwa hadda lagu soo oogay. nasiib darro maanta maxkamadda qodobka 328 ayay u adeegsatay xukunka ay ku riday Cabdicasiis Gurbiye. waxaa isweydiin mudan qodob kale oo meesha ku jira oo ah 269 in maxkamaddu ay qirtay in lagu waayay Cabdicasiis Axmed Gurbiye taas oo ka dhigan in go'aankan uu yahay go'aan siyaasadeysan oo maxkamaddu meelna ay ka leedahay waan ku weynay eedeymihii loo haystay Cabdicasiis Gurbiye meelna ay xukun 6 bilood oo xariga iyo ganax lacageed ay ridayso. marka ma ahan qalad Cabdicasiis Gurbiye lagu xiray eedeymaha Cabdicasiis Gurbiye ka dhanka ah ee loo adeegsaday xukunkan ayuu yahay mid loo adeegsanayo siyaasad gaarna waxaan dareemaynaa in xafiiska madaxweynaha arrintan uu ka dambeeyo. annaga ka BBC ahaan ma hubno eedeymahaasi laakiin haddii aan ku weydiiyo xeerkan waa midka kaliya ee wararka been abuurka ku saabsan intaan ogahay. marka sidee doonaysaan in lagu xukumo haddii uusan jirin mid kaleetood? saxaafaddu sideeda dambi maaha. dadka saxaafiyiinta ah ee ka shaqeeya qalabka warbaahinta maaha in loo isticmaalo xeerka ciqaabta ee soo dhigaya ama soo rogaya ciqaabaha culus. sida aad bilowgii barnaamijkana sheegtay madaxweynaha isagaa Twitterkiisa ku qoray 3 bisha May inkastoo annagu aaminsana inay iyadu laftirkeeda ahayd propaganda siyaasadeysan ay in madaxweynaha uu ka laabtay xeerka ciqaabta isagaa sheegay. laakiin nasiib darro isla xeerka marka adinka ka urur ahaan oo maadaama aad tihiin saxafiyiin Soomaaliyeed Cabdalla aan ka dhexgalay saxafiyiin Soomaaliyeed maadaama aad tihiin ka urur ahaan ma u qabataan saxafiyiinta da'da yar ama saxafiyiinta ka howlgala dalka oo dhan tababaro ama siday uga dheeraan lahaayeen wararka aan saxda ahayn ama been abuurka ama khatarta gelin kara? tababaradu waa joogto. arrimaha aad weydiinaysaan waxay la xiriiraan anshaxa saxaafadda. saxafiyiinta si joogto ah ayaa looga wacyigeliyaa arrimaha ku saabsan anshaxa
saxafiyiinta waxaan kuu sheegay in aqoontooda Soomaaliya jooga ay aad u kordhayso boqolkiiba 80 in ku dhow saxafiyiinta maanta waxay ka baxeen jaamacadaha marmarsiyo looma heli karo saxafiyiinta Soomaaliyeed in xukun noocan oo kale lagu qaado in la yiraahdo anshax ku xadgudbeen ama aqoontooda liid marnaba marmarsiyo ma noqon karto mahadsanid Cabdalla Muumin ayuu ahay oo naga soo biiray magaalada Muqdisho kaasi mahadsanid Cabdalla